Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Walaalayaal waa anigu Ustaad Samatara. Muuqaalka kan waxaanu kusoo gudbin doonaa amaba aynu ku sharaxi doonaa aynu ku dul istaagi doonaa koorsadeena tan soo socota ee bilaabmi doonta bisha Juun. Qaabkii maxaan ku dhahdaa ay u bixi lahaayeen sidoo kale waxyaabaha ay ka kooban yihiin course outline-ka waxyaabaha ka kooban yahay waxyaabaha aad heli doontid ee member ahaan aad heli doontid baynu insha Allah tacaala ku dul istaagi doonaa. Sida oo kale waxaana ka marnaan doonin oo iyadana ku sharaxi doonaa aanu ku dul istaagi doonaa qaabka aad isku diiwaan gelinaysid iyo weyga iyo habka aad maraysid baynu insha Allah tacaala iyadana ku dul istaagi doonaa. Haddii aynu u guda galno sharaxadeena tan guud ahaan marka laga yimaado manhajka iyo maxaan ku dhahdaa koorsada aanu qaadanayno waxaad heli doontaa 8 qodob 8 qodob oo ku saamixi doona marka loo geeyo koorsadeena amaba casharaanteena ama waxbarashadeena iyo 8 qodob marka la isku geeyo waxay ku saamixi doonaan inaad sida ugu macquulsan sida ugu fudud sida ugu wanaagsan aad suuqada ka faa'iido uga samaysid si degdeg ah sidoo kalena aad guul uga gaadhidna. haddii aan u guda galno manhajkeena kan wuxuu ka koobnaan doonaa amba koorsadeena tan manhaj dhammaystiran. marka aanu manhaj dhammaystiran leenahay waxaad heli doontaa manhaj ay ku dhan yihiin dhammaan ashyaadii ku saamixi lahayd inaad guul ka gaadho ay ku yeeshaan oo waxaad ka heli doontaa course dhammaystiran oo manhaj dhammaystiran oo istiraatiijiyadiisii risk managementgiisii wixiisii oo dhan watabaad ka heli doontaa qodobka koowaad. qodobkeena labaad waxa weeye waxaad ka heli doontaa waxa loo yaqaano kulamada tooska kulamada tooska oo ku bixi doona live zoom waxa loo yaqaano amaba habka sida tooska kulamada tooska loo yaqaano ayaad ka heli doontaa. qodobka saddexaad waxaad ka heli doontaa educational video waxaad heli doontaa casharaantii oo duuban oo maqal iyo muuqaalba ah baad heli doontaa oo si professional ah oo xirfadeedu sareysa u duuban baad heli doontaa haduu beenaado. sida oo kale qodobka afraad aad ka heli doontid qofka memberka kamid ah Raj Academy heli doonaa waxa weeyaan practice oo maxay practice waxa lagu diri doonaa taski amba xujooyin ku saabsan casharada aad dhigtay si adagna waa lagula xisaabtami doonaa si aad u fahanto kolba casharada aad qaadatay oo practice marka si lagu daba socdo oo loo hubiyo inaad casharaantii si wanaagsan aad u fahantay si aanad u dhayarsanin maadaama aanu doonayno inaanu soo saarno team si buuxda suuqada kan uga shaqeysta oo kadibna ummadda Soomaaliyeed kala sii gaarsiiyaan u baahnay baan doonayno ta rules iyo regulationkeega waxa kamid ah inaad kolba wixii lagu dhigay amba wixii waqti xaadirka lagu dhigay amba lagu fahansiyo inaad sideeda ugu soo baxdidna. marka practice qodobkaas waa qodobkeena afraad. qodobkeena shanaad aanu ka heli doonaa waxa weeye waxa loo yaqaano training waxa la qaban doonaa seminaaro ku saabsan IQ option iyo kuwa ka baxsanba si hadba wixii cusub lagugu tababarana oo sidaan wada ogsoonahay adduunyadu ama dunida sideedaba waxa ku jirta socod joogta oo maanta IQ option 2 sano amba sanad ka hor amba 4 bilood ka hor waxyaaba badan oo iska bedelay baa jira sida la ajrigeed mar walba waxa aanu samayn doonaa seminaaro ama training si loo hubiyo inaanu la jaan qaadayno mar walba wax cusub ee suuqada kan ka socda. qodobka lixaad aanu ka heli doonaa waxa weeyaan certificates waxaad heli doontaa shahaado cadaynaysa inaad tahay tareer buuxa kaasoo ka soo baxay Raj Academy oo certificate-ka maxaa lagu soo gaaraya waxa weeyaan waa marka taskiyadan ka soo gudubtay sida practice-ka oo kale maadaama aan doonno bulsho isku duuban oo suuqada kan si dhammaystiran faa'iidooyin uga samayso oo guul uga gaadhayna soo saarno doonayno marka aad practice-ka aad soo samaysid yacni wixii taskiya lagu diro wixii aad ka soo baxday waxaad heli doontaa markaasi oo cadayn u noqon doonta inaad tahay trader buuxa marka certificate-kaas aad heli doontaa haduu ay beenaado. qodobka toddobaad aad heli doontaa amaba uu ka koobnaan doono koorsadeena waxa weeyaan mindset waxa weeyaan waxa la dhisi doonaa qaab fikirkaaga ku aadan suuqadan oo qaabka maxaan ku dhahday aad fikirkaaga ku aadan suuqada tan baa la dhisi doonaa si aad maxaan ku dhahday guul uga gaadhin siyaabo kale aanad wadada toosan aanad uga leexan hadda si kala dhigno.
qodobka 8aad aynu ka heli doonaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano support team. waxaad heli doontaa support team mar walba ku diyaara kuwaasoo kolba wixii xaajadii amba wixii aad u baahan tahay ka caawin doona hadduu ibn yiraahdo. 8 qodob baa si caam ahaana oo koorsadina tan uga koobnaan doontaa. iminkana waxaan soo dul tagi doonaa amaba aynu sharxaad guud ka bixin doonaa course outline-keena waxa uu ka koobnaan doono casharaanta uu ka koobnaan doono yaabaan idin dul tagi doonaa hadduu ibn yiraahdo. haddii aynu isla nimaadno course outline-keena amaba koorsadina tan waxa ay ka koobnaan doontaa casharaanta ay ka koobnaan doontaba ugu horreyn waxa ay ka koobnaan doontaa waxa loo yaqaano episodeska oo episode 1 iyo episode 2 bay ka koobnaan doontaa oo isku noqon doona total 14 cashar 7 cashar iyo 7 cashar isku noqon doonta hadduu ibn yiraahdo. episode 1 ka waxaanu ku baran doonaa ugu horreyn casharaanta ugu hadaynu isdul taagno maanta taabano waa maxay key option oo aynu ku baran doono casharka kan waxyaabaha uu key option meeshu ka yimid waxyaabaha yahay waxyaabaha uu taagan yahay xilliga la sameeyay saameynta uu suuqada kan ku leeyahay waxaas oo dhan aynu ku sharxi doonaa hadduu ibn yiraahdo. casharka labaad waxaanu ku sharxi doonaa erebixinaha suuqada kan oo erebixinaha baynu isla baran doonaa waxyaabaha suuqada kan looga isticmaalo ereyada. casharka saddexaad waxaanu ku baran doonaa qaybaha traderska qaybaha u kala baxaan sidayaabaha suuqada kan uga ganacsadaan nooca tahay nooca noqon doono inaku waxyaabahaasaan ku sharxi doonaa. casharka afraad waxaanu ku sharxi doonaa siraha iyo trickska suuqa oo siraha iyo trickska marka aan leeyahay waxaanu ku sharxi doonaa ama aan ku baran doonaaba waxyaabaha anaka asraja academy noo saamaxay inaan faa'iido ka sameeyno taas oo ayna cidna la wadaagtaa aan jirin aanan wali hore u aragna been insha Allah taala ku baran doona casharka afraad. casharka shanaad waxaan ku baran doonaa sida loo furto akoonada isticmaal doona sida loo furto baan ku baran doonaa. casharka lixaad waxaan ku baran doonaa ahmiyadda ay candlesticks ku leeyihiin amba importance of candlesticks shumacyadu. casharka toddobaadna waxaan ku baran doonaa psychology of the trader ama qaab fikirka qofka traderka. episode 1 ka 7 cashar baan ku baran doonaa hadduu ibn yiraahdo. episode 2 iyadana waxaan ku baran doonaa 7 cashar. casharka koowaad waxaan ku baran doonaa sida right line-ka iyo trade line-ka suuqada kan loo dhigto baan ku baran doonaa. casharka labaad waxaan ku baran doonaa nashqadaha suuqa ama patterns-ka nashqadaha suuqa kan san wada ogsoonahay nashqada waxa jira haday ku soo baxaan suuqa kala wareejiye ama sii socodsiye nashqadahaas ku baran doonaa. casharka saddexaad waxaan ku baran doonaa aagaga meelaha la doonayo zoneska la doonayo inaanad entry ka gelin zoneska la doonayo aad entry ambaba aad inaad ka trade gareysid la doonayo hadan si kala dhigno. casharka afraad waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaan risk management. casharka shanaad waxaan ku baran doonaa taxliilinta waqtiyada. casharka lixaadna waxaan ku baran doonaa how to take entry in IQ option walibana sida entry-gaan ugu qaadanay IQ option ka baan ku baran doonaa. casharka toddobaadna waxaan ku baran doonaa amaba aynu ku sharxi doonaa ama aan ku soo gudbin doonaa tala guud baan ku soo gudbin doonaa hadduu ibn yiraahdo. 14 cashar baa gundhig amaba gunaanad oo ah koorsadayna tan oo episode 1 kaas iyo episode 2 kaas oo 14 cashar oo si heer sare loo soo duubay oo nuxurkii iminka waxaan ka dhigi karnaa dhowr iyo 40 cashar waan ka dhigi karnaa laakiin waxaan u soo koobnay waxa weeyaan si ayna qofka confused uga noqonin anakuna dee san wada ogsanahay dad fara badan baa IQ option maxaan ku dhibaataysan marka sida la ajligeed waan soo koobnay si ayna qofka waqti badan uga qaadanin talabaadna oo qofka confused uga noqon casharaanta fara badan. marka 14 cashar oo muhiimad ugu la suuqada kan baan ku baran doonaa aan soo wanaagsan ugu sharxi doonaa hadduu ibn yiraahdo. iminka waxaan isla tagi doonaa siyaabihii qofka marka uu doonayo member Raj Academy kamid ah inuu noqdo waygu uu mariyay siyaabihii uu isku duwan gelinayay baan iminka isdul taagi doonaa. haddii aan iyadana sharaxno qaabkii aad iskaga duwan gelin lahayd Raj Academy ama qaabkii aad u sameyn lahayd isduwan gelinta waxaan iman doonaa ugu horreyn channel-keena Telegram-ka Raj Academy. haddii aan numberan ka haynin Raj Academy support team-ka numberadooda haddii aanad haynin oo kale amba aanad haynin maxaan ku dhahday support team-ka sida WhatsApp-ka oo kale amba Telegram-ka oo kale waxaad iman doontaa barta tan ay ku qoran tahay maxaan ku dhahday Raj Academy yaad ku dhufan doontaa
waxaad ku dhufan doontaa xagga ay bioska ama information ku qorayeen linka waxa yaala linkii support teamka baa yaala kaasaad click odhan doontaa hadduu been idhaahdo kadibna message baad odhan doontaa marka halka kan baad message noogu soo diri doontaa qaabkii aad isku diiwaan gelinaysay iyo meeshaad lacagta kusoo diraysay iyo all information ba xaggaasaa lagula wadaagi doonaa hadduu been idhaahdo haddii aanad telegram isticmaalinba ama telegram aanad ku badnaynba whatsapp numberkeena boostaradeenna way ku jiraan whatsapp number ka support teamka sida boosterka kan ka muuqataba waa numberkaas oo kale mar walba support teamka amba telegram ha noqoto amba whatsapp ha noqoto baad la soo xiriiri doontaa haddii been idhaahdo halkaasna macluumaadkii sida isku diiwaan gelinaysay sidii maxaa ku dhahday aad payment processka usoo bixinaysay baa lagaga soo gudbin doonaa payment processkuna by the way haddaan idin sharaxo waxa uu noqon doonaa fiigu $39 buu noqon doonaa muddo bil ahna wuu socon doonaa hadduu been idhaahdo marka waxaan idin rajeynayaa dhammaantiinba khayr baan idin rajeynayaa intaynu sharxaad lamida ku kulmi doono waxaan iskaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu